daawadayaal qaybtan waa qaybtii labaad wararkii wacaalihii dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan ama horfadhi media waa 14 July 2019 markale barnaamijkeena falanqaynta dunida warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda Amal Express ku dirso lacagtaada kana qaado meel walba caalamka kaga sugan tahay waxaad ka helaysaa adeeg hufnaan iyo ammaan ku dheehan tahay dhammaan ka faa'iideyso adeegyada Amal Group markabka xoolo ka qaaday dekada magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxa uu maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ku xaniban yahay dekada magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia wararka ugu dambeeyay markabka ka imaanaya ayaa sheegay in markabkan oo ay ganacsato Soomaaliya lahaayeen kuwaas oo ka raray magaalada Berbera ay markii uu gaaray magaalada Jidda ee dekada leh ee badda cas ku taal ee dalka boqortooyada Saudi Arabia waxa la sheegay in la su'aalay isla markaana lagu xidhay in markabku uu wato fasaxa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo markaasi daaqa ee dawladda federaalka ee Soomaaliya goorsii horeysay oo bishii June bilowgeedii ayaa wasaaradda xoolaha xanaanada xoolaha ee dalka Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in ay heshiis la gashay dawladda Saudi Arabia kaasoo ku saabsan in xoolo kasta oo ga imaanaya dalka Soomaaliya ay markaasi haystaan fasax hatan wararku waxay sheegayaan in xooluhu ay ka dhokaysan yihiin markabkaasi maalmihii ugu dambeeyay ayadoo jahawareer xooggan ay ka jirto ganacsiyada iyo suuqyada magaalooyinka Burco Berbera iyo magaalooyinka kale ee Somaliland wararka ayaa waxay sheegayaan in dawladda Somaliland oo horay ay ugu yeedhay ganacsatada isla markaana ay dawladda Somaliland u sheegtay dadkaasi in aysan xoolaha dhoofin ka hor intaan xal laga gaarin arinta ku saabsan meesha laga qaadanayo fasaxa dhinaca caafimaadka iyo waliba ruqsadda waxa la sheegay in ganacsatada qaarkood ay ku dhiga adeegeen inay xoolaha dhoofiyaan ayadoo la sheegay in shirarkii ugu dambeeyay ee laga wada lahaa arintaasi ilaa xalay uu ka soconayay madaxtooyada Somaliland ayadoo wararku ay sheegayaan in dawladda ay ku adkeysanayso dhankeeda in xoolo dama aan la dhoofin tan iyo inta la helayo markaasi xalka wadamays ayadoo xilligan lagu jiro xilliga diyaar garowga carafada oo xoolaha aad loo iibsado isla markaana markaasi 4 toddobaad ee la kala macaasho ayaa waxa uu eegay in suuqu uu aad u dhacsan yahay Jabriga ku sugan asaguna magaalada Berbera maxjar kale ayaa la sheegay inuu gacan xooggan kula jiro xoolaha oo aad u jabinayo maadaama uu ka faa'iideysanayo markabka Soomaalida ee asagoo ku xaniban magaalada Jidda waxaana wararku sheegayaan in suuqa xooluhu aad u dhacay markaan jab xooggan la kulmayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee Somaliland iyo waliba kuwa markaasi waqooyi meesha lagu magacaabo Soomaali galbeed oo xoolahooda inta badan ay Berbera ka dhoofaan hatan waxa la sheegay in dawladda Soomaaliya iyadoo ay kaliya oo ay doonayso in warqadda xoolo ee fasaxa kaliya ay bixiso isla markaana waxa la sheegay in wax diidma aysan wasaaradda xanaanada xoolaha aysan ka taagnayn taasoo ku saabsan inay warqadda bixiso balse dhibaatada ayaa la sheegay inay ka dhalatay kadib markii ganacsatada Somaliland qaarkood iyo dawladda Somaliland labaduba ay diideen in ay warqadda ay ka qaataan wasaaradda xanaanada xoolaha hase yeeshee dawladda Saudi Arabia ayaa saraakiisheedu waxay ku adkeysanayaan inaysan aqbali doonin haba yaraatee markab aan sidan ruqsadda wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland oo sheegtay iyadoo inay 1991 ka gooday Soomaaliya inteedii kale ayaa caalamku wuxuu arkaa qayb kamid ah Soomaaliya waana tan keenaysa markaasi in la isku wadi leeyahay danaha dunida laga leeyahay iyo danaha Soomaalidu kala leedahay taasoo mar walba ay noqonaysaa in haraatida iyo dhibaatada iyo masiibadu ay ku dhacdo shacabka Soomaalida meel kasta jooga dal kamid ah wadamada Carabta ayaa waxa uu ku dhawaaqay isaguna in uu haweenka dalkiisa ee muslimiinta markii ugu horeysay loo ogolaaday isla markaana loo fasaxay in ay gursan karaan ragga aan muslimiinta ah dawladda dalkaasi Tunisia ayaa warbixin ay rasmi ah soo saartay waxay sheegeen in haweenka muslimiinta ah ay gursan karaan ragga gaalada ah sida lagu sheegay war ay soo saartay afayeenka dawladda dalkaasi gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi Beji Kate Essebsi oo iyadu haweeney lafteeda haweeneyda oo iyadu markaasi farxad weyn ay ka muuqatay ayaa waxa ay sheegtay in lagu dhawaaqay go'aan ka yimid dawladda dalka ayaa la sheegay taasoo markaasi ku dhawaaqaysa ama ogolaanaysa ayaa la yiri in dumarka u dhashay dalka Tunisia ama muslimiin ha ahaadeen aysan haan balidi ay xor u yihiin ninka ay doonaan inay guursadaan ayaa dalka boqolkiiba 99 waa muslimiin wuxuuna kamid yahay dalalka Carabta ee dhinaca markaasi ilaalinta xuquuqda hore loogu xaba jiray inay ilaaliyaan laakiin saad mid hadda ku tarxtagay in arintaas in aad wax xaraan ah xalaalayso waa arin aad iyo aad halis u ah يعني marka la eego dhinaca diinta iyo xataa marka la eego dastuurada dadku ay qorteen xataa bil aadanku dawladaha la joogto qodob dastuuri ah hadaad jabiso oo aad yiraahdo waa jabi cilka lagu leeyahay bal ka waran qodob dastuurka Ilaahay yani Ilaahay baa xarimay wax qof bil aadan oo banaan karo miya qof bil aadan banaan karo maaha adigu mana banaan kartid mana xarimay kartid labada midna adigu ma lihid waxa adigu leedahay in hoggaansanaan kaliya laga raba laakiin waa arrimaha yaab kale ee dunida Carabta ku soo kordhiya isbeddelkan cusub ayaa lagu sameeyay markaasi sharciga madaxweyne Essebsi oo asagu 93 jir ah kaasoo haatan
markaasi u muuqda in uu kusoo khatimayo khaatimadiisii go-aan kamid go'aamada sida weyn loola yaabay. Dunida ayaa si weyn oola yaabtay go-aankan, gaar ahaan dalalka islaamka, ayaga oo dalka Tunisia oo la sheegay inay ku nool yihiin xoogaa dad oo Yahuud iyo Masiixiyiin ayaa la sheegay in dumarka aan inta badan qoysaskoodu aysan haba yaraatay kula talin in ay la hadlaan ama ay ama shukaansadaan ragga aan muslimiinta ahayn. dadka qaar waxay isweydiin karaan gabdho badan oo Soomaali ah markii qarbiga la yimid ayaa rag kale oo dadyo kale iska raaca. runtii taalifteedu way jirtaa, laakiin ugu yaraan ciduma ma baneen inagu taanu kaga duwanaana waa taas. runtiina adduunka waxyaalaha ka dhacay oo dhan inaynu ka warhayno waxaynu mar walba inoo sahlaysaa inaynu aqoon fiican u yeelano waxyaalaha inagu xeeran, ama sida aynu runtii ay tahay inaynu dabadasha qiimaha aynu qiimeeno caalamka iyo nolosha iyo sida ay tahay runtiina aynu u adkaysano markaasi diinteenana aynu u adkaysano, dhaqankeena u adkaysano, ammaanka nabadgelyada iyo isku duubnidana aynu ka talino ogana hortagno dhiigga mucaadarada ku daaranaya. dalka Britain wasiirkiisa arrimaha dibadda Jeremy Hunt ayaa isaguna xiriir la sameeyay dhigiisa dalkaasi Iran Mohammed Sharif Jafed, isla markaana waxa uu sheegay in dowladda dalka Britain ay go'aan ku gaadhay in la soo daayo ama sida ugu dhaqsaha badan loo soo daayo markabkii Grace 1 Panama loo jiray asagoo lagu afduubtay ama lagu duwaday deegaanka la yiraahdo Gibraltar bad yarada ama island yar oo jasiirad yar oo ay xukunto oo ay maamusho dalka Britain isla markaana Isbaaniya ka tirsan ama Isbaanishka dalka la yiraahdo ka tirsan. waxa ay arrintan ka dambeysay kadib markii ay muuqatay in dhawaan ay u muuqatay in dowladda dalkaasi Iran ay wacad ku martay in ay soo dhacsanayso markabkaasi la ajiga inay baxsato maraakiibta dalka Britain ay qulqulaya ayaa la gacan ka hormustaasoo ku qabsatay British in ay qarashka ku kacaya maraakiibta halka mushaaxiga kor u qaadaan isla markaana lagu galbiyo hal markab oo dagaal oo ay saaran yihiin qayb ka mid ah ciidanka boqortooyada ee dhinaca badda iyo diyaarado dagaal oo kormeera. taasina waxa ay kharash weyn gelisay markaasi kostiga ama qiimaha ku kacaya alaabaha la sido, iyadoo markaasi in markab raaco oo galbiyo ay qiimo sare ku kacayso markaan ay shacabka ku soo noqonayso. haatan wasiirka xogayaha arrimaha dibadda dalka Britain Jeremy Hunt oo asagu nin kamid ah dadka reer galbeedka wasaaradaha arrimaha dibadda jooga ugu furfuran ayaa khadka telefoonka kula xidhay Mr Sharif Jafed wuxuuna u sheegay in uu la joogo ayaa la yiri wajigi ugu dameeyay baaritaanka isla markaana sida ugu rasaha badan markabkaasi loo sii day doono marka la hubiyo ayaa la yiri in markabkaasi uu san jabin wuxuuna qabateynta saaran Suuriya ee dhinaca shidaalka iyo shayaaka ceedin ee la gaarsiin kara Suuriya. si kastaba ha noqotee wasiirka arrimaha dibadda Mr Jafed oo isagu ku soo socday dalka Mareykanka magaalada New York shirka uu kaga qayb galay qaramada midoobay u imaanayay ayaa sheegay in ay ka dhursugayaan bal in go'aanka uu noqdo mid rasmi ah. tan waxay ka dambeysay kadib markii 2 maalmood ka hor ciidanka dowladda dalkaasi ilaalada kacaanka ee dowladda islaamiga ah ee Iran ay hareereeyeen isla markaana ay u muuqdeen inay doonayaan inay dulaalaan markab uu lahaa Britishku kaasoo farcidile uga baxsaday kadib markii digniin xagga afka ay uga timi marka daba socday oo markaasi doonayay isagu inuu badbaadiyo iyo diyaarad Mareykanku lahaa oo kor kala socotay. si kastaba ha noqotee haatan arrinta ayaa u eeg in ay dowladda Iran ay u muuqatay in la loodi waayay isla markaana la ogol yahay in ay markabkeedii loo soo celiyo sida ugu rasaha badan sida muuqata, ayadoo sidoo kalena warbixin yaab leh oo dhinaca sirdoonka oo kor u sii qaaday markaasi kala duwanaanshihi iyo buuqii u dhaxeeyay labada dal ee dabcan waa labada dal ee Mareykanka iyo Britain uu markale daboolka ka qaaday ama ka soo dhaxbaxday waraaqihii gacanta lagu dhigay ee safiirka Britain ee Washington ay iscasiray Mr Darich ama Dark uu soo saaray. haddaba intayna warbixinta gelin horta Dhuusamareeb magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaa ilaa shalay iyo xalayba ku sugnaa saraakiil waaxda difaaca ee dalka Qatar ka socda kuwaasoo gaaray magaalada xarunta u ah gobolka Galgaduud ee dalka bartamaha dalka Soomaaliya ee Dhuusamareeb. arrintan ayaa waxa ay kor u qaaday cilaaqaadka labada dal ee Qatar iyo Soomaaliya oo aad u wanaagsanaa isla markaana waxay markale daboolka ka rogtay sida ay Qatar diyaar ugu tahay inay wax la qabato ayaa la yiri dowladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo isaguna magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka si tagay ayaa waxa uu ku soo dhaweeyay xubno ka socday wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Qatar iyo xubno kale oo ka soo raacay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya oo ka mid yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha iyo saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee Qatar ayaa looga hadlay ayaa leeyahay xoojinta taageerada Qatar ay siiso qalabaynta iyo xoojinta ciidanka qalabka sida Soomaaliya. waxaana sidoo kale ku sugnaa goobta ayaa leeyahay xubno ay ka mid yihiin wasiirka amniga gudaha iyo wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga taliyaasha ciidanka xoogga booliska iyo asluubta ee dalka Soomaaliyeed. dowladda Qatar ayaa ka qayb qaadanaysa dhismaha ciidanka xoogga gaar ahaan baa leeyahay xarumaha dhismaha ciidanka ee hore u lahaayeen ku talay Dhuusamareeb ama gobolka Galgaduud wuxuu ahaa mid ka mid ah goobihii ugu waaweynaa ee dalka Soomaaliya
Soomaaliya laga ilaali jiray maadaama uu yahay dhinaca istiraatiijiga halka xarumaha Balambal iyo magaaladaasi Dhuusamareb lafteeda qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahayd ciidan kamida qaybtii ugu weyneed ee dalka ayaa halkaasi deganeed haatan saraakiisha qadariyiinka waxay sheegayeen inay dib u dhisayaan xiriyaha qaybo kamid ah sidoo kalena halka waxa dhawaan laga dahafray la wareegista ciidanka ahlus sunna wal jamaa kooxda la baxday ee ayagu halkaas ku sugan kuwaas oo ayagana la sheegay in lagu darayo ciidankooda ciidanka heer federaal kuwaas oo ayagu sheegtay inay yihiin wadaad diimeedo ayagu sheegay inay dawladnimada taageersay waftigan oo weheliyaan taliyaasha ciidanka sidoo kale waxa ay qiimeyn xoogan ku sameeyeen ayaa la yiri dhamaan xarumaha kale ee la doonayo in dawladda Qatar ay maalgeliso isla markaana dib dhiska xoogan ku sameyso dawladda Soomaaliya ayaa si xoogan dhawaanaha dhan u codsanaysay in dhisitaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u baahan tahay hiil weyn oo ay dawladaha caalamka ka hesho si ay uga guuleysato dagaalka daba dheeraaday ee kooxaha wax kharbada ay kula jirto kuwaas oo gumaad xoogan ku haya shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay sidoo kale in ay markaasi soo jeedato ayaa la leeyahay dalka qaarkood inay arrintaas haatan u qumiyaan Mareykanka ayaa dhawaan tibaaxay in ay wax la qabanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhismihiisa sidoo kalena cutubyo ka tirsan ciidanka Africom ee fadhiya dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa iyaguna qayb ka noqda howlgallo markaasi waaweyn oo qarsoodi ah oo lagu markaasi bartilmaameedsado saraakiisha al-shabaab kuwaas oo marmarka qaarkood noqda kantaalo cirka la iskaga soo gemo marmarka kalena noqda howlgallo military oo markaasi ciidan si gaar ah u tababaran oo qayb ka yihiin ciidanka danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka qayb galaan waxaana haatan saraakiishan ay muujinayaan mar kale in xiriirka labada dal uu u muuqdo mid markaas taabagal noqonaya Qatar ayaa dhawaanahan dawladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa inay fuliso mashruuc gobolada markaasi shabeellooyinka gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe ilaa iyo magaalada Afgooyi ee gobolka Shabeellaha Hoose isku xidheeyay kaasoo ahaa wada jid ah oo markaasi sii mar kareysay bartamaha magaalada xarunta Xamar oo xoojinayay markaasi kabayaasha dhaqaalaha iyo dhismayaasha waaweyn haatana aan qodobka ugu dambeeyay warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan warbixinaha ku soo afgooyay daawada qiimaha leh madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la tibaaxay markii ugu horeysay sababta uu uga baxay heshiiskii adduunku la yaabay isla markaana la heli waayay raadkiisa asalka Sir Kim Darroch oo ah ninka markaasi ninkan horta Mr. Sir la yiraahdo ninka la yiraahdo Mr. Kim Darroch la yiraahdo u fadhiyay dalka Britain u fadhiyay magaalada Washington intuu san sacasirin isagoo arbacadii horta wana aad khabiir u ah isla markaana waxa la sheegay in cimrigiisa inta badan uu u shaqeynayay dawlad inta ugu sii badan oo diblomaasiyadda ka shaqeynayay wuxuuna howlgabkiisu ku ekaa bisha December bisha 12aad ee sanadkan dabayaaqada sanadkan December bisha la yiraahdo ayuu ku ekaa haatan waa uu iska sii casilay iyadoo ay xogaa u harsan tahay 5 bilood 4 bilood meelahaas ay ugu harsan tahay markaas shaqadiisa ama howlgabkiisaba ay ugu harsan tahay inuu shaqadiisa ka casilay ilaajiga kadib markii la helay xogta haatan xogta ayaa qaybtii ugu muhiimsaneed waxaa soo saaray Daily Mail oo isagoo ahaa wargeyskii markii horeba gacanta ku dhigay xogta sida uu Daily Mail hadaba ku waramayo waxa uu Mr. Kim uu cadeeyay ama Sir Kim wuxuu cadeeyay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ujeedka uu uga baxay heshiiskii adduunka oo dhan dimuqraadiga ka ah ee JCPOA ee magaalada Vienna lagu saxay sanadkii 2015 isla markaana lagu heshiiyay in Iran ay dhinto maadada hubka nuclearka laga dhaliyay uranium loo yaqaano oo aysan bacriminteeda ay yarayso adduunkana wuxuu noqotay inta ka qaado saliidda Iran la fasaxo isla markaana ay saxeexeen quwadaha loo yaqaano 5+1 oo loola jeedo markaas afarta dal ee codka fitada qayaxan leh iyo dalka Jarmalka waa dalalka Faransiiska dalka Britain Mareykanka Shiinaha Ruushka iyo lagu daray dalka Jarmalka lixda dal isla markaana ay kormeer ku sii ahaayeen dalalka midowga Yurub sababta uga baxay ay cadeeyeen waxayna yiraahdeen waxay kaliyo tahay inuu ku xumeynayay isla markaana uu kaliyo oo diidanaa Obama arrintan ayaa waxa ay noqotay arrin aad yaab u leh wargeysku waxa uu qoray in warbixinaha ay heleen ay ku qorneed in Sir Darroch uu sheegay in waxa kaliya ee lagu nisbeeyay in uu qaato waxa uu ku sifeeyay ama erebixinta uu ku sameeyay markaasi burburka diblomaasiyadeed ama dhulgariirka diblomaasiyadeed ayuu ku sifeeyay ayuu yiri waxa ay kaliya ahayd ayuu yiri inuu san jeclay ninka isagu xukunka ka bedelay ee madaxweynahanimada ku wareejiyay ee Obama loo jiray siyaasadihiisa iyo guulihii faraha badnaa ee uu gaaray hadaba taas waxa la oran karaa boqol waxay badan tahay sax waayo madaxweynuhu dhammaan talaabooyinka uu qaaday oo dhan waxay ahaayeen wixii loo yaqaanay Obama legacy ama waxyaalaha Obama ka tagay ay ahaayeen tusaale ahaan xiriirkii Cuba iyo Mareykanka ee uu Obama soo celiyay wuu burburiyay oo wuu xumaaday
sidoo kale waxa uu joojiyay heshiiskii Paris ee climate change waxa loo jiray ama cimilada ayuu madaxweynaha Mareykanka ka baxa sidoo kale heshiiskan JCPOA ayuu ka baxa sidoo kale barnaamijkii loo jiray Obamacare ee dhinaca caafimaadka caymiska caafimaadka ee dadweynaha Mareykanka oo dhan markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka qof walba oo Mareykan jooga siirayay inuu ama ku khasbayay inuu caymis caafimaad lahaado ayuu isku dayay intaas oo jeer inuu bedelo ama uu baabiyo meesha ka saaro inkastoo uu waayay inuu kalsooni uga helo labada aqal sidoo kale qorshihii lagu xidhay Guantanamo Bay lagu xidhay meesha la yiraahdo inkastoo Obama markii hore waxyaalihii uu ku soo galay kalsoonida ay ahayd oo aqalka sanadka soo hortaagay isagoo saxay in la xiro ayaan wali la xidhin oo isaguna meeshii si cidla ama qorshihii uu joojiyay in la xirayo Guantanamo Bay bal waxa uu sheegay inuu sii balaarinayo marka arrintan waxa ay markaasi noqotay in kaliya ay tahay dagaal u dhaxeeya wuxuu ugu yeeray dad Mareykan gudihiisa ninkan wuxuu tafaasiil ka bixiyay kulan yaab leh oo dhacay ayuu yiri bil ka hor waa bishii Abriil ee sanadkii hore waa ka hor bishii May buu ka baxay sanadkii hore 2018 sad ogtiin heshiiska ayuu ka baxay marka bishii Abriil ayuu yiri kulan dhacay oo Boris Johnson oo ninka hadda u tartamay weeye prime ministerka inuu noqdo marka aha xogayaha arrimaha dibadda Britain ayaa waxa uu u yimid ayuu yiri magaalada Washington si uu u badbaadiyo ama u bambaaniyo heshiiska laakiin inkastoo la kulmay madaxweynaha laakiin wuxuu la wada kulmay ayuu yiri dhammaan madaxda ku xeeran oo ku jiro madaxweyne ku-xigeenka oo ku jiro madaxa dhinaca istiraatiijiyadda qaranka sidoo kale ay ku jiraan xubno kale oo la taliyaala dhammaantoodna waxay u muuqdeen inay ka fikir duwan yihiin madaxweynaha isla markaana ay u arkayeen inay tahay qaawin dulmaasideed oo dalka Mareykanka lagu sameeyo hadii kaligii uu go'aansado inuu ka baxo heshiiska balse Derek waxa uu intaas ku daray in ay u muuqatay in ay dhammaan xubnaha Mareykanku ay ku kala duwan yihiin Trumpna ay kaliya u muuqato ayuu yiri weerarka dhinaca markaasi baabi'inta taariikhda Mr Obama ayaa Trump kaliya u muuqatay wax kale oo heshiiska looga baxay oo macna sameynaya ma jirto ayuu yiri arrintan waxay ku soo beegmatay iyadoo madaxa ku-xigeenka booliiska dalkaasi Britain uu dhawaan sheegay in ay dambi tahay in xogta noocaas warbaahintu ay faafiso isla markaana xog labada dal kharbudi karta xiriirkooda ay tahay dambi weyn balse labada xog haye midna xogayaha hore ahaa Boris Johnson midna uu yahay kan hadeerta dalka Britain xogayaha arrimaha dibadda Jeremy Hunt oo labaduba labadan inay isku haysta jagada Theresa May ka tagtay ayaa waxa ay labaduba sheegeen in ay warbaahintu xor u tahay ayay yiraahdeen in wax allaale wixii ayagu ay u arkaan inay dadka u wanaagsan yihiin ay sameeyaan Boris Johnson ayaa sheegay in inuusan u arag in journalka dambi lagu soo oogo Daily Mail ay sababta laajiga inay xogta sii daayeen waayo waxay u arkaan ay yiraahdeen in wax kasto dadweynuhu ogaanayo ay dan u tahay Jeremy Hunt waxa uu yiri asaguna anigu waxaan aaminsanahay ayuu yiri in warbaahintu ay xor tahay dalka Britain isla markaana markii ayagu ay arkeen warbixin isla markaana ay qiimeynta xukunkoodii ka dhalatana ay tahay in ay dadweynaha tan dan u tahay inay ogaadaan inay sii daayaan wax uma arko ayuu yiri dhibaato bal heerka laga gaaray waxa loo yaqaan madax banaanida يعني maartay freedom of press waxa la yiraahdo bal madax banaanida warbaahinta heerka laga gaaray bal heerka sidoo kale warbaahinta yani xilka inta leeg ee saarantay runtii waa aad iyo aad bay la yaab u tahay inagana dadka qaarkood waxa lagu xidhiidhaa waxaad ogtiin Facebook iyo dacaayad iyo waxyaalaha noocaas oo kale intaan ku joojiyo wararka wacala dhinaca dulasiyada amaanal